فيصل باسي تاجر مع مقابلات سمينية ملا قبل مع مقابلات اسمه حسن شيخ محمود بطلوا العكس وصدري وحنا الصوم بدقينا صدح موضوع عن وضوء ومدة كوكس فلنا ربيتان كل ما أنت الصومال حاجة كل ما نسيب ما تمد من شعب قاسي كل ما نسوي حويان وحير لانتاس إنك فيصل على وراء يري أباه إذا مدافع لك قصر هرقيس siyaasiyaal leh daahir yoonis oo ka mid ah urur siyaasadeedka horseeda ayaa ugu horreynba sheegay in guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Selel uu guud ahaanba lumiyay taageeradii gobolka ee xisbigaasi wadani isla markaana bulshada deegaanadaasi ayna wax taageera u hayn xisbigaasi geesta kale siyaasiga ayaa si diiran u soo dhaweeyay furista ururada siyaasadeed isagoo sheegay in shacabka reer Somaliland ay diyaar u yihiin in dalkani isbedel ka dhaco geesta kale sidoo kale siyaasiga ayaa bulshada la wadaagay hadafta iyo himilada horumarineed ee urur siyaasadeedka horseed haddii uu ku guuleysto inuu hego dalka ay ka hirgelin doonaan saddex waji weeyaan ayaan doonayna kaga hadlo qodobka koowaad waxaan kaga hadlayaa xusbiga wadani guddoomiyaha gobolka Selel u fadhiya nin farxaan la yiraahdo oo beesha ciise ka tirsan oo gobolka Selel u fadhiya xusbiga wadani oo iska hadlay inta waxa la yiri nin ariga loo diri jiray hadii geela loo diro uu ku haftaa baa la geela leeyahay hadii ariga ninka loo diri jiro ariga geel loo diro uu ku haftaa horta waxa weeyaan taariikh baa ka maqan waana beeshu ka soo jeedaa ciise beesha ciise marka la leeyahay tafiirta beesha ciise waxa ka bilaabantay waa Soomaaliland weeyaan waa degmada Sayla waa meeshii dhaantooyinka ciisu ka bilaabay ya Jabuuti xagga ka ankomtay Sayla cabahay ciise Itoobiya joogana halku ka ankomay waa Sayla inuu maanta Iraaqii Soomaaliland fadhiyo waa jaaliyad buu yahay maxaan ku raahdanay Soomaaliland waayaan daraan u aragnaa imika waa guddoomiyaha xusbigana waxa weeyaan waa taageerayaal inuu gobolkii dadka uga keeno oo maxaan ku raahdaa xusbigii uu joogay meesha uu adeego dadkii soo urursado ayay ahayd oo baahiyooda ka hadlo haddii biyo tahay haddii caafimaad tahay haddii waxbarasho tahay mowduuca dadkii dee waxay dareynayaan dantooda uu ka hadlo si iyaguna u taageeraan imika xusbigii wadani gobolkii Selel bir baa loo sitaa oo waxaan u aragnaa inuu Cabdiraxmaan Cirra soo diray baan u aragnaaba uu yiri ciise ka dhigay jaaliyad ninkan cali araya markii hore meesha ku ilaalin jiray ka yaro Jabuuti baa laga keenay kayra farxaan odagaas hadee meesha ku hayo ka odaga laftigiisuna uu tababar muway imika xusbiga taageero gobolka Selel uu hayaa xusbiga wadani ma jirto birba uu hayaa ciise waayo waxaan u aragnaaba in xusbiga wadani aaminsan yahay jaaliyada lugmanayna waxaan dad deegaan ka soo jeeda lagu haya Sayla intaba degan wala meesha ugaaskan ku caleema saarna xeerkeeba nagu jirta degmada Sayla war degmada Sayla aad ka tirsanteed u fadhido xusbiga wadani ma waxa ka tirsantay Jabuuti mise Itoobiya ka tirsantay meesha ka tirsan tahay hada ka jawaabi doono taasi waa taasaan u dhaafaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku hambalyeynaa in ururadu furay ururkan horseed oo Cabdilaahi Darawal hoggaanka ka yahay waxa weeyaan waa ninkii 10 sanadood Cabdilaahi buulka hoos u joogay ceelka hoos ugu jiray diinkii la oran jiray diin ceelaadkii la oran jiray dhoobada hoos u galaabo Cabdilaahi ha dhoobadu in badan ku jiro 10 sano dhoobadu ku jira maanta uu ka soo baxay dadkii uu wadanka ku dardaaray Maxamed Xaabjiraan cigaal buu yahay waxa weeyaan maanta xusbiyadii wadanka waxa isbedelka 10 sano looga dhigay ururada ay furmaan waxa weeyaan waa isbedel baahay isbedelkuna waxa weeyaan haddii ay kuwa xusbiyada jira ay noqdaan kuwa ku guul daraystay inay ummadda hogaaminteedii iyo nidaamkii ummadda ay rabtay haddii gaarsiin kari waayaan in ururada cusub u jil cusub oo dee danta Soomaaliland la gaarsiiyay inuu ka soo baxo maanta waa waqtigii xusbiyada maanta jooga waxba looga baqaynaa inay wadankii burburiyaan dad intee baad arkaysaa dad laawacay baad arkaysaa waxa hadallada ka soo yeerayaan maanta xusbiyadii mucaaradka uu yahay ninkii Faysal cali waraaba yiri aabahay baa madaafii laga saar Hargeysa waa ummadda si munaafaqadu ku kala kacaynay cid dooranaysa aan loo garanay wuxuu sheegay maamul goboleed baa sameynaya buu waxba noo aragnaa in dawladda Soomaaliya soo dirtay
hadallada ninka ka doonaya waddanka mustaqbalka iyo aayaha Faysal Cali Waraabe hadallada ka soo yeedhaya waa hadallo qaldan weeyaan waxaan u aragnaa in aqal xumo tahay cidii maanta haddaan ururadeedii cusub waxaan maanta hogaaminaynaa aan doonaynaa inaan dalka badbaadino ayaan u soconaa aniga Cabdilaahi Dirawal waxaan ka badbaadin xusbiyada maanta jooga waddanka waxaan keeni doonaa xeerashii ay sameyn waayeen 10 sanadood baa Cabdiraxmaan Ciro u fadhiyay golaha wakiilada waa ragii la doonay in xeerashii shuruucda ay sameeyaan maanta hal qodob oo Cabdilaahi Ciro uu kaga tagay waddanka ayaa maanta haysta dhibaatadiisa haysata hal qodob oo kaliya uu ka tagay barigii ayaa maanta dhibaatadiisa haysata doorashooyinku way soo gaareen tii ururada iyo tii madaxtooyada labada wad story waa sharci weeyaan qodobkii oranayay 6 bilood imika 6 bilood ee ururada furitaankoodu madaxweynaha sharciga faraya musabix furay ururada ma wuxuu isagu loo furay ma sharciga loo furay isla uu ku dhawaaqo sharciga maanta kursiga hadduu ninka la fadhiyana ka kalun baa ku dhawaaqi lahaa waan hambalyeynaa maanta ninka xaquuqdii 10 sano aan sugaynay ninka ku dhawaaqay ku dhiirada inuu fuliyo oo ururadu furo waan hambalyeynaa isbeddelkana maanta ummadaba u baahanba ummadii baa badbaado u baahan boo qarankii baa maanta dadkaysa xaaladdu ku jiro Faysal baa sii taagan maamul goboleedaan sameynaya meel laga biilay maamul goboleedkiisa Xasan Sheekh Maxamuud baa talo lacagta u soo diray maamulka uu ku dhisay ma garanayno maanta anigu waxaan u soconnaa inaan isbeddel sameyno horle kow waxaan sameynaynaa in ummadda midnimadeedii golayaashii sharci dejinta inaan dhisno oo shuruucdii waddankan ay qabiyada ay ka dhigeen maanta anigu aan qabiyo tirno rabitaanka shacbiguna wuxuu u baahan yahay in ummadda la mideeyo xeerashii baday lahaabaan horta anagu wadnaa ee ummadda inay ku bishaaraysato laguna taageertaan u baahannahay hadafkaa maanta aan u soconay iyo geedigaan maanta aan ku wadnayn doonayna ururadaasi ay noogu furmaan waxaan shacbiga Soomaaliland ka baaqaynaa inay nagu taageeraan imika anigu gobolka Sanaag baan ka soo jeedaa beesha Ciise saamigii barigii 1993 shirkii Boorama lagu qaybiyay 5 nin baa loo fadhiday baarlamaanka maanta hal nin baa loo fadhida shalan cali araya fadhiyay maantana nuuro golaha ka dhex duceeyay waa wadaade ayaa maantana fadhiya waxa weeyaan anagu rabitaankayga haddaan Ciise ahay de Soomaaliland waxaan u arkaa inaanu saamigayga oolin oo reer u reeran yahay maxaa meesha ka haddaba aqligii hagi lahaa ee ummadan midayn lahaa shuruucda samayn lahaa baa meesha ka baxay waana saddexda cusbeen meesha jooga weeyaan waxa ku guul daraysay inay maanta ummadda midnimadeeda iyo horumarkeeda ka shaqeeyaan waa iyagana ku eedaynayna waxaanu soo bandhigaynaa 3 mowduuc oo wadno oo ummadda ku kasbanayno rabitaankooda midnimo inaan golayaasha xeerkoodii sameeyno nin walba saamigiisii uu ku iman lahaa imika baarlamaanka Jabuuti fadhiya waa baarlamaan loo dhanyahay weeyaan isaaqu saami buu ku leeyahay samaroonkan inuu ku leeyahay ciisuu saami buu ku leeyahay reer saamigiisa lama taabto xeerkii samayn lahaa Ciise sameeyay baarlamaanka Jabuuti waa ka seega afarta joogta waa 10 qof maalin qura hadaa cod kaga qaadayna si laakiin xeerkii xakameynayay saamigooda ayaan sameynay maanta Soomaaliland xagga ka dhimanaysa maanta midnimada shacbigaas ku dhimanaysa waxa weeyaan waa xeer la'aantaas maalintii Boorama la isugu yimid reer beesha dhaxa waxa 8 hamood bahay 8 beelood bahay afar meesha way ka bixin ayuu baa baxay taajela baxay reeraha soo meesha waa ka saamigooda meel ku maqayna ma garanay reeraha saamigoodi baan soo celinayna kii Ciise aanu soo celinayna gabooyaa la 20 kun oo cod baa Hargeysa lagu soo saaray laba gabooyo haday joogto xeerkii soo saarayay labada qof ay ku keenaysa xildhibaankooda golaha ayaan sameyn doonaan keenayna waan aqligii ummadan hoogi lahaaba ummadan u baahan tahay isbeddelka maanta Soomaaliland u baahan tahay waa aqli weeyaan ummadan mideeya shuruucda xeerasha qabiyada ka golayaasha waan sameynaynaa waxaanu sameynaa xeerkii caasimadda oo qorsheediyadana hayno oo lagu guul dareysto shacbiga Soomaaliland waxaad ogtihiin inay ka bacda meesha islaanta ku iibinaysa maxaa ku yiraahdaa saambuusaha ku iibinaysa masaarif ka eegta dadkani haddii la raro dee meel laga biilinaya ma jirto ummadan iyadaas ku hoos nool si qorshe u baahan tahay ummadani nolosheeda ay ku badbaadiso dhulkii ay ku badbaadin marka linka booliska oo kale in la raro la dejiyo dadkaas halkan idaacadda sare raadiyo Hargeysa dhul lana inta lag baa ka banaan in dhulkaasi la baneeyo dadka suuqa jooga la soo dejiyo yoomkooda way keenayaan suuqaas uu furmaya marka
dadkii markaa nolol maalmoodkoodii way helayaanoo haddii meesha ummadda qorshe loo sameeyo nolol maalmoodkeedu way helaysaa suuqan hargeysa waxaad aragtay inay samxad baabuurtii tahay oo meel allaali meel laga maran lalaayay istaamadii baad arkaysaa ee istaamada basaska dowladda hoose inay A iyo B iyo C saddex lambar u kala qortoy baabuurta boqolka maanta fadhiya 30 kaliya ay ka joogsadaan A iyo B C marka laga dhigo way samxadii way yaraanaysaa tuqaamaha magaaladii wareeriyay inay isagana lambar u sameeyno A iyo B iyo C samxadda caasimadu way yaraanaysaa ummadan suuqa fadhida bacalaha iyo jaadka ku iibinaysa marka qorshe loo meel la dejiyo dee suuqii u banaanaanay bilcidina way soo baxaysaa bakhaar kasta waxa lagu amri karaa inuu marmar hortiisa dhigo saasa caalamku ku dhismaytay aqligii baa la doonaya anigu waxaan dhisaynaa qarankan dhisaynaa maanta waxaan badbaadinaynaa ummadaasi qabyaaladda iyo waxaad maanta halka maraysa aad arkaysaan xusbiyadaas waxay sameynayaan iyo ummadaasi halkay maanta ku wadaan aad arkayaan baan ka badbaadinaynaa ururada maanta waxaan ururka cusub ee horseed haddaanu nahay waxaanu diyaar u nahay inaan ummadda midnimadeedii iyo wax wada lahaanshadeedii xeerkii ay ku yimin lahayd aan samayno maxaan ku yidhaha xeerkii caasimadda waxaa jirtaa qodob maandhow Salebaan Cali Koorraa hadlay wuxuu yidhi isagoo wasiirkii arrimaha wasiir ka tirsan qarankaa buu lahaa aniga Faysal Faqashti baan ka mid ahay waxaasoo dhan xeer baan ka samaynaynaa qabta wasiir afkiisa ka mira Faqash baan ahaa muu yidhaa ee waa sharci la'aanta sharcigii qaban lahaa baan samaynaynaa doollayla sidaas awgeed waxaan ku soo gabagabeynayaa xusbiga wadaniga baa aad ciisu maanta aad uga kacay jaaliyad baa lagu sheegay inuu cirra ninka yare gudoomiyaha soo diray baa loo arkay arrinka cirra hadaad kula socotana ka jawaab haddii kale ninka meesha ka kaxee cabdirasaaq axmed aadan tayga telefishanka caalamiga Sam News Hargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom